السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. maxaa dhici lahaa haddii aanay jirin dumar saynu wada ognahay ama aaminsannahay dunida waxa ku nool 7 bilyan oo qof rag waa boqolkiiba 740 halka ay dumarku yihiin boqolkiiba 350 halkaas waxa cadeynaysaa inay naga badan yihiin dumarku boqolkiiba 17 haddaba wax isweydiisaa dunidan aan ku noolahay ama kookana ku noolay oo gabiyaantiiba aan wax dumar ay joogin oo ka buuxaan rag iyo xayawaano waa ta kale sababaha ka dhalan karana maxay noqonaysaa haddii aanay dumar jirin marka hore daryeel caafimaad la heli maayo sababtoo ah caafimaadkeenu wuxuu ku xidhan yahay dumarka inta ugu badan waxay dumarku bartaan ama boqolkiiba 90 waxay dumarku bartaan waa neersta ama kalkaalisada sidoo kale waxyaalaha dhici doona haddii dumar la waayo wax ka mid ah waxay dib weyn ka dhici doontaa dugsiyada hoose ee dhexe iyo xanaaneynta ubadka soo kordhiya hadda dhallaanka sababtoo ah boqolkiiba 97 macallimiinta dugsiga hoose iyo kuwa dhaxaba waxay macallimiintu u badan yihiin dumar qof kastana waa soo maray dugsiga hoose iyo mid dhaxaba haddaba maxay tahay sababta dugsiyada hoose ama kuwa dhexe badanka looga dhiga dumar badanka wixii iskuul soo maray way fahmayaan marka laga xaq dulqaadka iyo xagga fahanka iyo xagga firfircoonida iyo xagga farxadaba inta waxa ka haysta macallimiinta dumarka ah sidoo kale shirkad bilaa dumar ah waa geed bilaa calaama ah sababta saa u leeyahay xidhiidha mashaakilka oo kale raga oo qura waxba ma xalin karaan boqolkiiba 90 xafiisyada waxa la fadhiisiyaa sidoo kale hanta dhowrka waxa la fadhiisiyaa dumarka haddii aanay shirkadu dumar lahayn waxa shirkada ku dhacaya dhibaatooyin xagga dhaqaale ah sidoo kale haddii la waayo dumarka waxa caqabad weyn ku iman doontaa shirkadaha soo saara dharka iyo kareemada la soo qurxiyo xaggaana dumarka ayaa si wacan u kala yaqaana oo si aad u arkaysid maaha si qurux badan ayay u arkayaan iyagu xitaa hoteelada kama maqana sababta hoteelku wuxuu baahan yahay dumar hotel aan dumar joogin waxay la mid tahay cunto bilaa milix ah sidaas darteed hoteelkaas macmiil far badan yeelan maayo hoteelada waxa joogana boqolkiiba 70 waa dumar xagga rag yihiin boqolkiiba 30 sidoo kale waxa meesha ka baxaysa ama laga waaya meesha bil'aadanimadii iyo naxariistii waxana badanaya dagaalo iyo faqiirnimo markaas oo qof kasta qof ka xoog badan yahay ama ka awood badan yahay uu ku istaagaya sidoo kale wiilkeen ma ku yar yahay rag aad uma fahmaan laakiin dumarku si dhaqso ah ayay u fahmayaan si kasta ha ahaatee ogow inaan dumar la'aan dunidu jiri karin waxaanu ilaahay u abuuray sabab intaas ayuu nagu eegay maanta barnaamijkeenii inta ku kulmayna barnaamij lamid ah waxaan naga tagnaa sidaas oo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fadlan xaq hoose waa casti naga cadee si aad u hesho muuqaalo badan hadda subscribe dhe oo ka mid noqo kumanaanka qof ee ku xidhan channelkayga Xamza Jooqane nagu soo bir caalamkan cusub adoo ka faa'iido doona xogooyin iyo dhacdooyin la yaab leh